بسم الله الرحمن الرحيم وبالعوننا إن شاء الله عشر كيني كي هراء وأن قادني وحن في الآية إن لفهن سنة هاي ما دام أنا فيديو إذا خاركود أنا صادرين markaan editing aan dhameeyo umbaan soo diraya marka kolley midka ugu dambeeya umbaan gacanta ku haya hadda insha allah marka maanta inay idin soo gaaraan dhammaan umbaan wada rajeyn marka practice aad samaysaanna wixii markaa idin dhibo ila sheergaraya hadduu ilaah yiraahdo si aan u fududayn insha allah tan kale maanta waxaan qaadanaynaa useris waxaa loo isticmaalaa back endiga cms-ka qofka adminka ah inuu editor u yeelan karo oo qof kale access uu siin karo si websiteka loogu shaqeeyo more than a person editing marka waxaa la samayn karaa dadka macnaha markaa oo ku shaqa leh unba waxay samaynayaan inay update ku sameeyaan oo contentigooda ayaga gooni ay u gashan karaan marka waxaan cashirkaas kale gooniyan ka dhigaynaa waxaa la lahaa subdomain hadda waxaan baranay domain hadhowdina subdomainka macnaha nidaamka loola jeedo iyo sida userada ay u isticmaalayaan every branch and each branch so gooni ahaan ugu isticmaalayo unbaan u samaynaynaa marka sababta labadaas aan iskugu xiraa waxa waaye yani the head office hadduu branches uu leeyahay is the only website unbay isticmaali karaan oo markaas ayaga ay haystaan laakiin haddii ay u baahan yihiin inay branch kasto websitekiisa uu gooni u naqdo laakiin domainkaas ay ka midaysan yihiin sida hadda waxaan isticmaalaynaa gulwada oo kale hadhow marka waxay noqonaysaa london gulwade yani gobolada oo dhan birmingham gulwade yani gulwadihii unbaa on the middle ah laakiin subdomainka ama horead ka marin kartaa ama gadaal ka marin kartaa marka waxaan samaynaynaa maanta focuska waxaan saaraynaa insha allah useriska kadibna waxaan u gudbaynaa setting tools dib baan ugu soo noqonaynaa si aan ugu dhigno sequence si aan ugu dhigin oo isku xigxig aan ugu dhigin si qofka suu u fahmo oo u barto insha allah بسم الله الرحمن الرحيم useris hadda mid baa noo samaysan oo halkan aan kusoo galnay oo ah adminka marka wuxuu noo sahlinayaa waa qofka mainka wax maamulaya oo cms-ka maamulaya saad hadda aragtaan marka waxaan rabaa inaan ku daro user kale waxaan siinayaa marka access oo waxaan siinayaa inuu as a subscriber ahaan ama as editor ahaan in qofkaas macnaha wax uu edit gareyn karo asaa haddana siinaya dan waxaan leenahay add new halkan marka waxaan ku darsanaynaa for example username required waa adminkii umuna siiyey laakiin waa bedelan kartaa usernamekaagana mar walbaba inuu noqdo waxa adi markaa adaa siinaysa haddaad practical ilan hadda local hostiga waxaan ku samaynaynaa more practical courses waxaan samaysanaynaa wax anaga aan xasuusanayna aan mar walba gelinayna si aanan u ilooban laakiin haddaad mar admin adaa aad tahay qofka passwordka ka luma mar walba adaa u toosin kara kan marka waxaan samaynaynaa for example user one si hadhowdii usero badan aa u samayso oo aad practic aad ugu qaadato emailka qofka inaad markaa meesha adaa geliso waa ilan hadduu passwordka markaa ka dhumo live ahaan haddaad u samaynaysid oo domain rasmi oo ku xiran yahay waxaa lagaga baahan yahay email hadda marka waxaa meesha ku qoran email required almost marka waxaa gelinaysaa maadaama local hostiga oo live stimulation uu samaynayo one of the emails unbaa qaadanaysaa si ay kugu naqato requiredka waxa kama tegi kartid asoo oo empty ah kama tegi kartid hal mar aan laho aniga keliya ma aqaan kulay screenka waa wax maaragta hal meel loo taagan yahay Yeah, I was gonna say the same thing as well. You want to be like that ما فاهم وهذا واحدة وأنا صعد على screen just stand in one place هذا صار إلهي أمركيس يكون هذا يعني هذا كيف السؤال هذا كذا ولا laakiin waxa waaye haddaad iska gaarteen alxamdulilah waay
required marka qaybtan hadda macnaha qaabkan ku imaaday waad garan kartaan Soomaali soo ku soo celiya absolute perfect dashboard waxaan ka tagaa users markaan ku dhufto waxay soo baxaya panelkan oo hal ku qoran adminka waxa waaye waa userka ugu horeeyay aan markaas sameynay oo rulkiisa oo markaas uu haysto wuxuu haystaa administrator halkan macnaha emailka markaas anaga aan gelinay waxa waaye waa email oo local hostiga uu haysto as domainkii aan uu haystaa laakiin mar walbaba haddaad live hosting aad sameynayso domainka markaas oo hostigiisa unbaa gelinaysaa waxaan rabnaa inaan ku darno marka users ilan maadaama qofkan uu admin uu yahay powerka mar walba adaa iskale laakiin hadda admin kale qof kale waa siin kartaa qofkaas macnaha markaas ama wuu kaa saari karaa rulekaagana wax uu ka bedeli karaa for example aan aragna marka waxaan rabnaa marka hadda inaan ku darno qof editor ah iyo qof subscriber ah si markaas editing ay u sameeyaan halkan marka waxaan niri username required waxaan ka qaadaynaa marka almost user waxaan leenahay user sababta hadda anaga ugu qornayna waxaan rabnaa wax aan xasuusan karno oo si aan practicada aan ugu sameyno aanan u iloobin user 1 password macnaha emailkiisna macnaha waxaan ka dhigaynaa ama emailkaaga rasmiga ah ama email markaas aad practice ku sameynaysid laakiin haddii aan hostiga aan rasmiga inaan aan shirkadii hostiga aan ka iibsano mar walba waxaa ku khasban tahay hostigaas domainkaas aad iibsatay for example aan idhaahdo info for example waxaan iibsaday gulwada domain then waxaan leeyahay info domainkii unbaan ku qabanayaa for that reason kan marka waxaan sameynayaa si uu ogaado systemka uu ogaado maadaama required halkaas ay tahay then waxaan sameynayaa test.com ilan waxaan rabaa positionkaas inaan buuxiyo si aan practicada ugu sameeyo laakiin markii real life ay tahay oo domain aad iibsatid oo shirkadda aad ka iibsato waxaa sameynaysaa domainkaagii unbaa gashanaysaa from that reason halkan aan username anaga aan ku qoranna almost qofkii macnaha markaas editorka ah magaciisa unbaa gelinaysaa meesha userka ku qoran first name halkaa hadda lagu weydiinaya marka first name waxaan leenahay user 1 user 2 ilan already user 1 unbaa u isticmaashay laakiin magaciisa qofkan labadan waxaan ka wadaa tusaale laakiin haddii aan rabo inaan magaciisa qofka oo rasmiga inaan geliyo practicadaas adaa sameynaya waxaad gelin kartaa for example ali then waxaan leeyahay ahmed last name websiteka marka almost wuxuu ii naqanayaa domainka markaas aniga aan iibsaday oo local hostiga aan ka iibsaday unbaan domainkii meeshaas gelinaya halkan marka waxaa keliya aniga aan raacsanayo waxa waaye inaan directiga aan u fududeeyo world wide web then test.com generate password marka passwordkan waa password lay generate gareeyay aad buu u adag yahay marka waana strong waxa keliya aniga aan rabo marka waxa waaye password aan xasuusan karo maadaama aan practice aan sameynayo waa very weak passwordka waxnaha waa inuu ahaadaa marka waxaan kula talinayaa haddii aad iibsanayso waa hexadecimal inuu ahaado hexadecimal inaad xarfihii iyo symbol inaad isku darto iyo alphanumeric marka wuu ku adkaan yani kaasna waxa waaye waa the best recommendation oo qofka markuu rabo inuu samaysto then for that reason hadda marka maadaama uu yahay very weak wordpress waxay kaa rabtaa inaad configuraysid inaad macnaha markaa adiga isticmaalaysid si uu kaaga baxo haddii kale waxa waaye guduudaa saaran ma dhaafaysid then waxa waaye waa configuraynaysaa si aad ugu darsato haddaan ka qaado active ima naqanayo add new user sidaad aragtaan waa inaan configureeyaa waa very weak laakiin weaknimadiisaan ku rabaa maxaa yeelay practican baa ku samaynaya
sida aragtaan marka waxaan kula talinayaa more practic marka hadda samaynaysa hadda live practice samaynaysa oo scenarios then waxaa samaynaysaa user 1 bus 1 hadhowdii user 2 markaa samaysid bus 2 user 3 samaysay bus 3 yani si ay wax markaa kugu fududaadaan magaca doonto umbaad samaysan kartaa tasty.com any kind of system ay gelin kartaa oo email ay gelin kartaa meesha si aad ugu gudubtid requiredka si aad ugu gudubtid marka halkan ruleka waxaan ku darayaa for this side waxaan ku darayaa subscriber waxaan haystaa marka subscriber iyo contributor author editor and administrator marka qof baa qaatay طبعا waad siin kartaa administrator kale waad siin kartaa dadka markaa kula shaqeynaya qofkaas marka awood wuxuu u yeelanayaa inuu meeshii ka saari karo laakiin adminka marka ugu horeeya haddii dadkan kale ada aasiisay inuu author yahay inuu editor yahay editor systemkan hadda dashboardka halkan ugu soo baxayo oo dhan haddii qofkan editor aan siiyo waxyaalaha qaarkiisi ma arki karo maxaa yeelay adminka kaliya unbaa full dashboard arki kara cms subscriberkan wuxuu arkayaa in xadadan marka waxaan samaynaynaa subscriber iyo editor labadaas unbaan mid ka samaynaynaa user 1 iyo user 2 insha allah subscriber baan hadda qaadanaynaa then waxaan leenahay add new subscriber hadda marka waxaan siinay user 1 iyo bus 1 inuu kusoo gali karo marka hadduu khadka markaa geliyo umbaan waxaan samaynaynaa loginkan waxaan ka baxaynaa adminkan ka baxaynaa si aan usoo gelino user 1 si aan usoo gelino marka waxaan samaynaynaa hadda saad aragtaan dashboardkii wuu balaaran yahay everything oo dashboard oo adminka meeshii oo ku jira laakiin waxaan samaynaynaa adminka umbaan ka baxaynaa kadibna waxaan leenaha log out halkan marka waxaa igu qoran user 1 already passwordkii waa u qaatay password 1 waan save gareeyey si uu igu fududaado then waxaan leeyahay login dabeet waxaan ku galay admin hadda laakiin waxaan ku galayaa almost user 1 iyo admin marka dashboardka siduu u kala duwanaanayo umbaan arkaynaa sidaad hadda aragtaan almost dashboard profile intaas oo keliya unbuu haystaa qofkan waa subscriber bes macnaheeda waxa waaye adoo form oo subscribe oo aad samaysay qofkaas already wuxuu arkayaa on this side bes wax adaa u furtay kan hadda waa isla garanayaan filaya midkana ma bedeli karo usernameka ma bedeli karo ilan already database ku galay ma bedeli karo biographkiisii iyo sawirkiisii unbuu gashan karaa ama new password inuu markaas passwordka u bedelan karo bes nothing more kan kale marka waxaan ku naqanaynaa si aan u samayno user kale oo cusub si aan editorka haddana aan u galno aan idin tusiyo farqiga markaas u dhexeeya insha allah yes kan waan ka bedelaynaa waxaan leenahay admin exactly kan marka waxa hadda almost waxaan haysanaa full dashboard maxaa yeelay adiga adminka waxaan samaynaynaa mid kale oo editor editorka marka uu ku yara duwan yahay macnaha maadaama editor uu yahay waxba uu edit gareyn karaa contentigii waxyaalihii dhanna usoo baxaya waxaan ku daraynaa marka add new waxaan samaynaynaa user 2 aan markaas aan siinayno kan hadda waa subscriber waxaan siinaynaa editor baan siinaynaa then waxaan leenahay info test.com already website meesha noogu jira generate kan marka waxaan samaynaynaa maadaama aan hadda user 1 aan niri waxaan leenahay password 2
si aan practic ugu qaadano waa confirm garaynaynaa kadibna waxaan imaanaynaa for this side here subscriber aan mar hore qaadanay hadda waxaan qaadanaynaa marka editor labadan kale idinkaa samaynaya author waa qoraa waxyaalo marka waxyaalo basiid unbay ku kala duwan yihiin laakiin labadan farqi weyn u dhexeeya subscriber iyo editor farqi aad u weyn farqigaasa marka waxaan rabaa inaan idin tusiyo si aad u fahantaan sida loo samaynaya users iyo admin rulerada sida loo kala qaadanayo this email already exist then waxaan leenahay number 1 unbaa halkaas ku darsanaynaa maadaama uu jiro 2 unbaan ka bilaabayna waxaan leenahay info 2 then passwordka waxaan leedahay bas2 confirm garay then waxaan leedahay add waxyaalaha nambarada waxaan u siinaya waxa waaye almost qofka markuu more practice sameynayo computerkana sidiisu waa gacan ku hayn waxaa u baahan tahay more inaad more practice ku samayso marka way ku fududaanaysaa user 2 haddaad isticmaashid ina password 2 haddaad isticmaalaysid ilaahay amarkiisa ku dhacday direct marka waxaan sameynaynaa for example user 2 halkan marka waxaa noogu qoran password 2 marka maadaama uu systemki created already uu yiri then it's already in the database usernameki iyo passwordki direct halka hadda waxaad aragtaa marka kii adaayad waxaa nala siiyey dashboard iyo profile oo kaliya laakiin kan waxaa nala siiyey media inaan ku dalan karo maxaa yeelay qofkan waa editor mala socotaan editor marka profilekiisii haddaan rabo ruleka laysiiye inaan ogaado profileka imaanaya then I can just see what kind of rule oo markaas aniga ana haysto then you just come down rulekaada marka waxa waaye waa visual editor unbaa haysataa direct marka waxa isla markiina uu kusoo baxay laakiin waxa kaliya oo qofka uu direct u arki kara waxa waaye farqiga waxaa haysataa content pages inaad samayn kartid posted inaad samaysay labadan haddaad samayn kartid oo pageskiina adii aad create garayn kartid postigana adii aad samayn kartid categorieska aad samayn kartid macnaheedu waxa waaye you are full editor yani marka barnaamijkaas waa update garayn kartaa laakiin yani take over kuma samayn kartid website-ka almost waxa waaye waa kaliya editor unbaa tahay kor waxaa kaa maamulaya administratorka unbaa kor kaa maamulaya intaas ma isla garanay ilaahay amarkiisa ku dhacday marka waxaan ku naqanaynaa adminkeeni si aan casharkeeni inta kale aan u dhamaystirno insha allah admin perfect qaabka macnaha waa qaabka aniga aan userada u samaynayno profilekaaga inaad wax ka bedelan kartid aad ku dari kartid then it's very easy one for that one waxaa noogu xiga marka tooliska importigiisii iyo systemka iyo exportiga intaan waa usoo naqanaynaa personaalada sida loogu daraayo gadaal baan ugu soo naqanaynaa waxaan u baahan nahay this one yani mar hore waxaa lee weydiiyey websitekeygii for example aan tusaalaan idin tusinaya permanent link markaan menuyada aniga aan samaynaya oo aan websiteka aniga aan sameeyo halkan marka waxaa iga soo baxaya bostyada markaas aniga aan sameeyey magacoodii content laakiin hadda waxaa meeshaan ka muuqda linki kale oo aan yani qofkii ama google search uusan fahmaynin waxaan u baahanahay marka inaan ku jeediyo magacaas oo marka inuu qaato contact us ase bost ahaan inuu qaato macnaha bost kasta aniga aan sameeyo ama page kasta aniga aan sameeyo magacii rasmiga inuu qaato si aan hadda macnaha waxaan idinka tusin karaa another website let me just say
already markaan ku dhufto IT news almost halkaas waxaa kasoo baxay download block. waxaan u baahanahay contact. pagekaaga marka wax uu haysto sida hadda aad aragtaan halkan waxaa meesha iga soo qormay contactiga unbuu isiinaya, laakiin waxaan u baahanahay on this side asna inaan ku sameeyo the same thing, inaan jeediyo. waxaan nidaamka loo sameeya marka waxa waaye waxaan imaanayaa setting. kow waxaan ka bilaabayna horta general si aad u fahantaan, laakiin hadafkayga waxa waaye waa permanent links. general wuxuu isiinayaa sitekeygii qaabka macnaha marka uu shaqeynayo oo URL-ka uu ku shaqeynayo oo igu xiraayo. for example site URL waa kan site URL. marka haddaan practic aniga aan sameynayo domainka waxaan nidhi waan bedeli karnaa, laakiin maadaama local hostigeyni oo kan uu haysto labadan sidooda uma ku dhaafeynaa. site nameka marka halkaa kasoo baxaya, for example halkaas waxaa saad aragtaan waxaa ku qoran gulwade marka halkan unbaa ka bedeli kartaa. haddaan ku daro marka gulwade LLC markaan save gareeyo aan direct aan save gareeyo, halkaas kore waxaa ku darsamaysa hadda waxaad aragtaan edit page gulwade WordPress. hadhowdi marka gulwade LLC unbay naqanaysaa ama gulwade company. macnaha titleka site titleka oo kor ka soo baxaya oo qabanaya. for example hadda halkaas waxaa ku qoran Facebook meesha lagu qoraayo waa site title, waa halkaas uu kaaga soo bixi. kan waa taglinekaaga marka almost waxa waaye raise yourself to help mankind. waxaa ka dhiganaysaa marka yani sub tagline oo view words ah inaad explain ku samaysid what your site is about. halkaasaa lagugu sharaxay yani explanation kale oo aan meesha ku qoranayo. waxaan macnaha marka slogankaaga uu yahay unbaa meesha ku qoranaysaa. labadan marka haddii aad domainka aad iibsatay already aad hosting company aad ka iibsatay, halkan domainkaaga direct uu soo koraayo markaad aad install garayso WordPresska. emailka adminka waa kan. haddaad rabto marka email adminkaaga oo rasmiga ah hadhow markaad domainka aad iibsato hostinga uma waxaa ka samaysanaysaa email admin@gulwada.com. then hadhow passwordkaaga kaa lumay ama systemka ku xirmi waayo waxa waa emailka lagala soo xiriirayo oo linkiga lagu soo dirayo passwordka adi aad ku bedelan kartid ama hosting company ay kala xiriirayso wuxuu ku naqanayaa this email. membership anyone can register. haddii aad leedahay registration for example oo website-kaaga uu leeyahay yani dadka oo dhan waxaad siin kartaa subscriber bes si ay hadda waa aragteen subscriber wuxuu kaga duwan yahay oo this, laakiin WordPress asaa ku imaanayo directly. haddii aad dadkaas adi aad dhahdo admin wada sii websitekaas maalintaas waa ku dayi. site language adiga markaa adi aad isticmaalaysid waddanka adi aad isticmaalaysid unbay ku xiran tahay. then intaas oo language unbuu leeyahay WordPress. yani waddan kastana wuxuu taxgelinayaa dialectiga oo markaa ay ku hadlayaan waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin. hadda United Kingdom iyo United States way kala duwan yihiin. labadoodina macnaha waxa wuu ku kala siinaya laba system unbuu ku kala siin. adi marka kan kaaga unbaa dalbanaysaa. time zonekaagii si aad website-kaaga update-ka haddii ay ku kala duwan yihiin time zonekaaga halkan unbaa ka dalbanaysaa. si aad time zonekaaga adi aad u ogaatidna waxa waaye waa google ku qoranaysaa your time zone asaa ku siinaya this list. waxaa soo haray wadamada adi markaa adi aad joogto. for example waddan kasta hadda sida Sweden oo kale yeerka laga bilaabaa bishaa lagu xijiyaa maalintii unbaa yani bidixday kasoo wadaan waxayna u qortaan on this side. waxaa loo qoraa 2021-10-10. inta oo yani idinkana waxaa ka bilaawdaan for example hadda sida caalamka intiisa kale waxaanan Scandinavian aan ka ahayn dhanka kale u qortaan. sanadka gadaal unbuu maraya maalinta unbaa soo horeysa. ilaahay amarkiisay ku dhacday.
kan marka wuxuu ii sahlinayaa oo isiinayaa inaan nidaamkayga systemka aniga aan bedelan karo kadibna waxaan leeyahay safe markaan idhaahdo halkaa waxaa iga soo baxaya companyga aniga aan ku daray haddaan refresh gareeyo setting 7 halkaana imaanaya waxaan leeyahay marka refresh si aan u arko titleka inuu ku darsamay gulwada company ilaahay amarkiisa ku dhacday saa aragtaan halkaa waxaa iga muuqda gulwada company kaas waxaan filayaa waa clear waan ka gudbaynaa waxaana soo haray writing waqtigana waxa waaye waa almost wuuna haya haddii uu khadkiina saas oo noogu dhammaado waxaan samaynaynaa cashar kale oo ku xigo umbaan ku samaystirayna insha allah category hore umbaan soo marnay bosses category waxaa ku jira mid aanan markaa la tirtiri karin oo default ah laakiin adaa waxaa samaysan kartaa yani midka oo defaultiga ah waxaa leedahay aniga boostiyadeeda ugu badan mar walbaba waxay galaan building then default post category umbaa waxaan ka dhiganayaa building macnaheedu marka waxay ka dhigan tahay building lama tirtiri karo hadhow yani waa uncategorized laakiin hadda wuxuu ku yaala default ku ah uncategorized umbaa default ku ah waa bedelan kartaa marka haddaad rabto yani mar walba waxay ku xiran tahay waxa kugu badan oo aad bostiga ku samaynaysid default post format formatkan macnaha waxaa loola jeedaa textyada adi aa isticmaalaysid inaad bolda ka dhigi kartid inaad sizeka adi aa weyneyn kartid waxyaalahaas oo dhan yani waa standard marka wuxuu ku siinayaa everything quote inaad samayn kartid video aad gelin kartid bostigaaga inaad wax walba ku darsan kartid marka standardkiisaan ku dhaafsanaya mail server haddii aad emailkaagii form inaad ku xirato oo aad serverka aad ku xiraysid bortigaagi waa inaad ogaataa kan marka waxay noqonaysaa inaa gooni ah idin tusiyo outlooga naftirkii saasa loo sameeya iyo loginkaagii wax adi aa ku gelaysid iyo passwordkaaga wuxuu ku noqonayo default mail categoryna waxa waaye waa uncategorized hadhowdii inaad u samaysatid category gooni ah si ay emailadaas oo dhan meesha ay u galaan kan marka waxaan samaynaynaa cashir oo waxaan ka dhiganaynaa gooni ah maadaama uu naga rabo mail server oo rasmi ah inaan u samayno si aad u aragtaan insha allah qaybtan kale marka waxa waaye waa update service haddaad rabto dadka inaad ku jeedisid updatekaagii wordpress automatically notification update inuu kuu qaato when you publish a new post markaad samayso inuu direct kuu qaato haddaad rabto page cusub ama post cusub aad samaynaysaa halkan unbaa gelinaysaa linkiga inaad soo koobi garaysid waxaa nooga haray reading reading halkan waxa waaye your latest posts iyo static page marka latest posts mar walbaba boostada ugu dambeysa aniga aan geliyo unbuu soo qabsanaya oo direct soo qabsanaya pageka kaasna waxaa lala jeedaa for example haddaan idhaahdo yani bostiga wuxuu ka bilaabanayaa from top kadibna waxa waaye waa down bu u socon let me just show it to you static waxa waaye isma bedelayo si boskiis unbuu taagnaanaya laakiin hadhowdii unbaan networkan waxaan ku balan doonaa static iyo dynamic waxay kala yihiin static waxa waaye ma dhaqaaqayo wax pagekaas oo markaas adi ad dhahdo unbuu sidiisu taagnaanaya laakiin bostis macnaheeda waxa waaye your latest bostis kiwii hore hoosay marayaan kan cusub uma kor soo maraya mar walbaba yani websiteka marka waxa waaye mar walba updatekiisii wuu sii soconaya bostyadii qaabkaasay u soconayaan on this side marka waxaan samaynaynaa for example let me just see bostyadaada hadda tusaale waxaan idin tusinaya sawiro halkan aad soo gelisay for example like this one haddaan kanaan sameeyey house construction road construction iyo we realize your dream bosti kale cusub haddaan sameeyo kuwan marka mar walba macnaha waxay marayaan hoos bay marayaan yani kuwii oo qadiimka ah hoosay marayaan kuwii kale unbaa kor soo maraya this one
mar walba wuxuu ku siinayaa one hadhoodii laba kale haddaa ku dartid layoutku wuxuu ku qabanayaa saddex direct marka kan idinka practice ku sameynaya si aad postiga aad meesha aad ugu qaadataan mar walba macnaha waxa qofka macnaha waa inuu saartaa your latest post static haddaa saaratid isma bedelayo blog page show yani si uu website-kaaga uusan u dheeraanin hadda meesha waxaa ku qoran 10 oo posts oo keliya inuu tusiyo 10 posts markaa gaartid wuxuu sameynayaa reading section yani in page kale automatic kugu sameynaya oo reading ah inaad markaa ku dhufato oo haddana qaybta kale ay soo baxaysa asaa automatic u sameynaya marka adaa samaysan kara inaad 5 ka dhigatid ama inaad 10 ka dhigi kartid each post feed inuu tusiyo full text ama except inaad samaysid kaasna waxay ku xiran tahay your theme determines how content is displayed themeka adiga markaas adi aad dhisatay unbaa go-aankiisa qaadanaya layoutkaaga siduu yahay laakiin badanaa recommendationka waa full text inuu qofka tusiyo si aadan si websiteka aa ugu dhigto user friendly oo qofka haddana markuu galo click kale oo read more haddana inuu sameeyo markaas kadib inuu wixii uu helo kanna waxa waaye search engine feasibility discourage haddaan aan sameynaya laakiin check ma sameynayo maxaa yeelay waxaan rabaa inuu google CEO-ga inuu ii qaato discussion qofkii macnaha maanta oo su'aal at the same time waa i weydiin kartaan inkastoo hadda waxa waaye waqtiga wax yar uu ka dhiman yahay then waa direct horeyaa iga weydiin kartaan si aan hadhowdii u cover garayno default post settings qaybtan intaan attempt to notify any blogs linked from the post saddexdanba muhiimay i yihiin yani allow people to submit comments mararka qaarkiisii waxaa lagu soo dirayaa commentiyo waawaalan ma rabtid marka dadka inay comment ka bixiyaan marka waxaan sameynayaa I taken it out from this ama waxaan sameynayaa commenteska mararka qaarkiisna halkan oo galaa waxaan halkan ku dhufsanayaa help direct intuu imaanaya kan hadda warka marka ma haysto halkan kama soo bixin intuu kugu jiraa marka discussion ay imaanaysa then allow people to submit comments on new posted haddaan ka qaado marka jeg marka aniga aan ka qaado comment kama bixin karaan it's only for you comment author must be filled out name and email yani name and email waxaa ka dhigtay must in qofkaas la geliyo si uu commenta ugu bixiyo marka haddaan ka qaado labadooda meesha maba jiraayba almost wuu ka baxaya yani waxaa ka dhigatay marka free ugu dhigtay qofka laakiin waxaa rabtaa magaciisana inaa ogaatid emailkiisana aa ogaatid qofka commentiga markaa kasoo bixiyey hadhowdii waxaa helaysaa marka databaseka ku helaysaa wuxuu soo qoray emailkiisii iyo magaciisii automatically close comments on posts older than 14 days yani wixii 14 days automatically meeshuu ka bixinaya marka haddii aan rabo marka waxaan leeyahay waan kasoo yareyn karaa waxaan ka dhigin karaa 5 days oo keliya in la arko automatically inuu baxo useless must be registered and logged in to comment qasabaan ugu dhigaya haddaad rabtid inaad comment adaa samaysid userka inuu isticmaalo marka kan wuxuu ku fiican yahay markaan aniga web shop aniga aan haysto oo e-commerce ahaan aan wax iibinayo waxaan helayaa registration badan registrationkaas hadhowdii macnaha wuxuu ii sahlinayaa emailadoodii inaan marketing aan u isticmaalo markaan producti oo cusub aniga aan rabo inaan iibiyo inta email aniga kumanaanka email aan xagga ku keydsaday oo database aan ku keydsaday